kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada idaacadda CKC laanteeda afka Soomaaliga iyo waliba shabakada wararka qurba jooga Soomaalida ee somalidiasporanews.com. dhageystayaal sidaan hordhac barnaamijka idinku sheegay waxa maanta marti stuudiyaha CKCU inoogu ah majaajilista GH Wilwal oo aan ku ah Radio Wilwal. saaxiib Wilwal maxaad nooga sheegi kartaa Radio Wilwal? libaax halkay inoo mareysay marka hore aan iraahdo ilaahay amarkii ana og hadal baa ka dambeyn indeed. basically libaax raadiyahayga haddaan kaaga warramo waxaa dhageysta 4 qof. ma 4 qof oo qura? iyo gabar walaashay ah abshiro iyadana waa in la waco oo la xasuusiyo markaan hawada soo galo ilaahay amarkii. waan gartay. ilaahay amarkii. Wilwal balse sida muuqata waayadan dambe YouTube-ku waa uu ku shidan yahay halkaasoo barnaamijyadaada raadiyaha aad looga daawado. libaax waa runtaa oo waanigii lahaa Axmed Diiriyow saaxiib waxaan ku sigtay in aan celebrity noqdo oo la arki waayo without my lawyer ilaahay amarkii annaga wax aragnay. bal dhageystayaal aan idin yara sharxo qadar Wilwal intaanan wareysigiisa sii guda galin waxaan idin xusuusinayaa inaad barnaamijyadiisan xiisaha badan aad ka daawan karaysaan qolka YouTube-ka ee Radio Wilwal ama haddii aad YouTube-ka tagtaan barta laga baaro wax oo search engine-ka la yiraahdo oo aad ku qortaan Somali comedy waxa halka ka dhex muuqanaya majaajilooyinka Radio Wilwal oo idil. haddaan wareysigii dib ugu soo laabto Wilwal waxaan ku weydiin lahaa hal abuur majaajilada ayaa tahay maxaase ku dheer? libaax heesahana waan qoraa waxaa jirta hees caan ah oo aan leeyahay. maxaad nooga sheegi kartaa heestaas oo ay ku saabsan tahay? heeskaasi libaax wuxuu ku saabsan yahay oo aan ka alifay bidaarteeda. ma bidaartaadaad hees ka curisay oo ilaahay kugu og yahay? libaax hees baan bidaarteeda ka alifay halku dhageedu yahay naaguhu ninkii bidaar la weyn necab yihiine alla noo naxariiso. waxaan idhi hadduu boqor yahay baxsanow deeqsi yahay balwadna uusan lahayn bidaartay uga baqan ee naaguhu ninkii bidaar la weyn necab yihiine alla noo naxariiso. imisaa nin raga baan ku daray imisaa nin raga oo reer dhaqan lahaa ay wiil raamale iyo rabbi ha u darnaadee rasta ay ka raaceen war naaguhu ninkii bidaar la weyn necab yihiine alla noo naxariiso waanigii lahaa. wallaahi inaba caadi ma tihid Wilwalow waxaan se ku weydiiyey abwaaniintii hore dumarka iyo fardaha ayay ammaani jireene adigu ma bidaartaadaad hawsha ka bilowdayba? libaax waanigii lahaa hadal baa ka dambeyn to paraphrase to quote Oprah Winfrey basically I needed a closure after I lost my hair ilaahay amarkii annagaa wax aragnay. waayahay Wilwal dhageystayaashu lama socdaan balse waxaa jirta in aad si uga caajisaysay ugana cagajiidaysay inaad wareysigan aanu kaa qaadno daqiiqada ka horna waxa aabad bilowday in wareysiga aad dedejiso oo hadalkaad ii boobsiiso saacadaad farta ku fiiqaysay magac geesina waad wadataa sidee xaalku yahay? cabdiqaadir guuleedow waxaa jirtay inaan magaaladan Ottawa joogi jiray. waan la socdaa in waliba reer ay halkan degan yihiin. familigu halkan wuu joogo laakiin familiga waa la iga daran yahay waxaa joogto oo ideedaysa ayaamahan dambe islaan aan 93gii bac garaabaa ka qaatay. oo Wilwal haddaan ku fahmay waxaad ka cabsanaysaa in islaantii sida aad sheegtay 93 aad bacda garaabada ka amaahatay ay raadiyahan ka maqasho amaba isla stuudiyahanba ay kugu soo gasho. libaax hadal baa ka dambeyn waanigii lahaa oo weliba gacan baaba ka dambeyn karta ilaahay markii annagaa wax aragnay. Wilwal ma istiri 93kii wax badan baa ka soo wareegay muddo laga jooga marka amayba ka xusuusanaynba. libaax qoftu wax ilaawaysa maaha waana high tech islaantu oo maalin dhaweyto Facebook-geeda igu soo dhex gashay oo waa la ogaa wixii habaar iyo dhaar woolkayga ku dhacay ilaahay amarkii annagaa wax aragnay. wallaahi waxbaad aragtay. marka libaax ila yaabin waan sii cararayaa ee dhageystayaashaadana igu salaan anaaba og hadal baa ka dambeyn. haye waad fasaxan tahay dhageystayaashana anaa kaaga cudur daaranaya. ilaahay amarkii. waa tahay dhageystayaal oo waaba dhaqaaqdayba Wilwalow waa hagaag
intaa waxaa ku eg wiilwaalna dhaqaaqiye waraysiga aanu wiilwaal la yeelanay oo magaalada Ottawa u jooga bandhig faneed amaba stand up comedy oo halkan ku soo bandhigi doono oo ay soo saaridiisana ka wada shaqaynayaan idaacadda CKCU laanteeda afka Soomaaliga iyo waliba shabakada somalidiasporanews.com